madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdulle Maxamed Cali Gaas ayaa maanta ay taariikhdu tahay 14 bishii 8 2015 booqday Marwaxawe Aadan Maxamed Caami iyo sidoo kale caruurtii iyo xaaskii uu ka dhintay marxuum Xildhibaan Siciid Nuur Dirir. ugu horeyn madaxweynaha ayaa hoygeeda ku booqday Marwaxawe Aadan Maxamed Caami oo kaalin weyn ka qaadatay nabadgelyada, horumarinta, waxbarashada iyo daryeelida dadka danyarta ah ee ku dhaqan gobolka Mudug. Marwaxawe Aadan Maxamed Caami oo kaalin wanaagsan kaga jirta bulshada Puntland ayuu madaxweynaha ku bogaadiyay howlaha muhiimka ah ee bulshada u hayso isagoona Alle uga baryay inuu u fududeeyo. intaasi kadib ayaa madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdulle Maxamed Cali Gaas waxa uu gurigooda ku booqday caruurtii iyo xaaskii uu ka dhintay Rabbi ha u naxariistee marxuum Xildhibaan Siciid Nuur Dirir oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka Puntland laguna dilay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. madaxweynaha ayaa qoyska marxuumka Alle uga baryay in samir iyo iimaan buuxa uu ka siiyo marxuumka. Sida Cali Nuur Cabdi, Sida Cali Taatko, Star TV, Gaalkacyo.